ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xuseen Roble. Haddaba waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Maxamed Xuseen Roble waa injineer ku dhashay magaalada Hobyo bishii Oktoobar sanadii 1963 ahna aabe dhalay 5 caruur ah. Waxa uu waxbarashadiisa asaasiga ahayd ku soo qaatay magaalada Muqdisho, halkaas oo markii dambe uu jaamacadda ummadda kaga biiray kulliyadii injineerka ama injineernimada oo uu ka qalin jabiyay sanadku markuu ahaa 1990. Maxamed Xuseen Roble marka uu dalka ka dhacay dagaalkii sokeeye waxa uu ku biiray tobanaanka kun ee qof ee Soomaaliyeed oo u qaxay dalka dibadiisa, markaasi oo u suurta gashay inuu tago ama uu dego wadanka Sweden. sanadku markuu ahaa 2000 ayuu jaamacad ku taala magaalada Stockholm ee dalka Sweden ka qaatay shahaadada heerka labaad ee master's degree-ga. Maxamed Xuseen Roble waxa uu markaasi intii ka dambeysay uu ka howlgelayay dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden, isagoo dhowr iyo 10 sanadood la soo shaqeeyay hay'adda qaramada midoobay, gaar ahaan hay'adda u qaabilsan shaqaalaha adduunka ee loo soo gaabiyo ILO. sida ku cad nuqul CV-giisa ka mid ah, waxa uu ku hadlaa 5 luqadood oo kala ah luqadda Soomaaliga, luqadda Ingiriiska, Swedishka, Carabiga iyo Talyaaniga. Maxamed Xuseen Roble oo ah 57 jir ayaa madaxweyne Farmaajo sheegay inuu u soo xushay aqoonta iyo waayo aragnimada iyo kartida uu u leeyahay inuu sii ambaqaado dadaalada dowlad dhiska iyo horumarinta qorsheynta qaranka. Maxamed Xuseen Roble ayaa haddii uu helo kalsoonida baarlamaanka waxa uu la wareegi doonaa xafiiskii uu baneeyay ra'iisul wasaarihii isaga ka horreeyay ee Xasan Cali Khayre, kaas oo 25kii bishii Luulyo uu guddoonka baarlamaanka sheegay in kalsoonidii lagala laabtay. Roble waxa uu haystaa 143 maalmood, taasi oo ku eg dhamaadka muddo-xileedka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana looga fadhiyaa inuu soo dhiso waa haddii la meel mariyay xukuumad dalka ka qabata doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble waa nin aan horey looga aqoon arrimaha siyaasadda, hase yeeshee waxa uu la soo shaqeeyay ama uu ka soo shaqeeyay arrimaha horumarinta. waxa uu sidoo kale siyaasadda ku soo biirayaa xilli doorasho ay wadanka ku soo fool leedahay, arrintaasi oo noqonaysa shaqada ugu weyn ee looga fadhiyo xukuumadda soo socota uu soo dhisi doono waa haddii la meel mariyo. wuxuuse ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen nooca doorasho ee uu dalka geli doono iyo habkii loo mari lahaa. magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dowladda iyo madaxweynahaba u dhiman yihiin xilli aad u kooban oo aad u yar. haddaba maxaa ka mid ah caqabadaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay? magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli xasaasi ah oo uu dalka ka jiro kala guur siyaasadeed. waxa uu dalka ku jiraa xilli lagu wado in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho dadban. waxaa shalay lagu heshiiyey qaabka loo marayo doorashada 2020-2021. waxaa sidoo kaleeto ra'iisul wasaaraha cusub looga fadhiyaa inuu isu keeno dhinacyada ku kala irdhoobay siyaasadda oo uu isku dayo inuu mideeyo, uuna sidoo kaleeto waddanka gaarsiiyo doorashada lagu heshiiyey iyo hirgelinta qorshayaasha qaranka.